السلام عليكم جماعة الصومال ملك استوجبتم السلام يا جنرال قاعد أونيس من نوردين وفشل بليس ذاك عصب تاسك سكراب لكن أنا قلب بقيلم ما عندنا وحكمت إن برنامج تسكو حرنا سلسلة وقبل الصومالية الود بعطينا يوقصوا بحي مقالة مقدشو عاصمة الصومالية برنامج كاسوا ركبة الصوماليات وقبلها أنت أنشأهم الله سماه هدو ذين ركعتو هو دقاي وحي ku sameeyay barnaamijkan waxa soo bandhigay wariyaal caana oo xaqiiqada dhabta soo bandhigay nala daawada barnaamijkii oo xaqiiqada dhabta ay ka jirto gabdhaha Soomaaliyeed lagu hayo noo muujinay ku rabi Soomaaliya marka fashirkii waxa sheegayso maxaa waa abuu maxaani waxa ka haliyay abdi waxa sheegayso maxaa iyo abeen oo ka haliyay nabadgelyo waa gabar Soomaaliyeed oo mustaqbalkeeda ka baryaysa wiil ku dhaqan iyo ku diin ah oo aafa la doonaya waa maxay muuqaalada uu duubay magaciisa iyo xeeladaha uu adeegsado dumarka ayaa idinla wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka like saar walaal una gudbi dadka wanaagsan ee aan dhammaan ragga Soomaaliyeed muddo qaadan doono gabdhaha waa nala dhasheen waa na dhaleen waa noo dhaxeen marka waa hooyooyinkeen dhibaatada lagu hayo ma dul qaadan karno iska bedelaan oo alla ilaahay gabdhaha garab la siiya dhibaatada lagu hayo laga daaya marka nala daawada kilibka waa sii socday بريا أبوه والله بالله سبحانه بريا أحمد أبوه حريص في أبوه إليك عبسنا وفتوه يا قلبي إلى هذا الموضوع بريا إليك عبسنا إليك عبسنا ma ahan magaceeda saxda ah waa hooyo caruur dhashay laakiin ku dhacday dabin halis ah shakhsigan oo lagu magacaabo Axmed ayay xiriir la sameysay si ay nolol ula yeelato laakiin maxaa dhacay wuxuu uga faa'iideystay baahida iyo hamuunta ay u qabto inay ka baxdo nolosha kelinimada ah wuxuu ku qasbay galmo sawirro iyo muuqaalo ayuuna ka keedsaday taasi waxay keentay in gabadhani miskiinta ah uu sidoo doono ka yeelo 8 saac habeenimo xitaa haddii uu u baahdo waa uu wacaya waxa uu ku amrayaa inay suuliga gasho isdiyaariso kadibna video call ka soo wacdo amaba subaxii qofka ugu horeeya ay u imaanayso uu isaga noqdo suudunaani adiga boqolka hiibad fiican kaana qurxoon kaana ma arkin oo bulshaa hadda kalibi badan aad ku soo diri karaa oo xalay ugu dambaysa taan ugu jeedaan adiga aan ku sugaano fahmin oo wanaag aan adiga iga rabin kaama rabano fahmin baynano ma salaamano oo hindi dhibaato ay ga dambeeyo taas ugu fahmin ninka aadir tawaari walba aadan oo xalayna dagdagga soo dhigana san ku ogaano oo awadna ay dhayso taleefon qof ay isticmaashay saasi firkaas ay geeno san ku ogaano oo inoo ay ga dambeeyay bax naasi kale markii nala soo xiriirtay dhibanaha oo ay nuurto iyo gabdho kale ay ku jiraan waxaan isku daynay inaan bartiisa gaarka aan la wareegno taas oo ay noo suuragelisay in codad aan ka helno gudaha messengerkiisa digniino oo u diraya nuurto iyo gabdho kale taas oo muujinaysa xaqiiqda dhab ahaanta dadka uu iyagu dhibaateeyay walaasha nuurto waxay dhibkaasi u maraysaa inay ilaaliso sumcadeeda oo ay dhowrto laakiin ma dhowrna dhagalqabahan muuqaaladeeda iyo sawiradeeda si joogto ah wuxuu ugu diraa dhalinyaro ay asxaab yihiin isaga oo muujinaya raganimo dheeri ah sawirkan waxaa ku jirta gabar kale wuxuu u muuqdaa inuu ku jiro qol mugdi ah oo u eg qolkiisa balse waxaa ka daaran leer yar oo berbirqaya qayb ka mid a sawirkan waxaa muuqato هذا عام تاجن تأكما تأكل سبعين بتجناني وحير هذا كهلايو عند قلب دير هدول عم سكل ضعيف عندي ركعت أهم يوز تدو صبر ذات إله كابيرا كلا إله الوح على قول الله قول أبي ربع يقول هسا إله أري أبي هذا كذي تريك الدنيا وجد إله إذا قبضنا أنا فقد دلنا إله يكافئ السلام ورمغلا أما ورابها يدين يريستو gabadhii maanta la dila waxaa ku xigi doonta saaxiibteed ama walaasheeda mahadsanideen gabaray haddii aad joogto Muqdisho iska ilaali shakhsigan dhagarta badan ee suudka madow garawaatiga cad iyo kobaha luujidada dhaldhalaalaya marsaday
ee doonaya inuu gabdhaha ku soo xerogashto kadibna halista nuucan oo kale ah dhex istaajinaya. barnaamijka xiga wuxuu noqon doonaa ma ogtahay in shabakad dumar ka kooban ay ku nool yihiin muqdisho iyagoo ku dhowda ay rikaateeyaan ragga kadib markii ay isticmaalaan duubista muuqaalada sida messengerka ama facebooka iyo whatsappka. haddaba shabakadan yaa hogaamiya? Zadani Fanka ayaa ka mid ah dadka hogaamiya shabakada. toddobaadka dambe la soco. dadkeenu ma dhoohayahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo oo waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay maqla dhiidhiyo kacay wixii dhig lahoo kacay damiirku intaanu dhiman. marka Soomaaliya waxaan lama dhowro karo marka laga dhiidhiyo. Soomaali weyn meel kastoo joogtuna waxaan rajaynaa guul iyo gobonimo. gabdhihiina Soomaaliyeed hala garab istaago xilligeedii baahan yihiin garabkooda hala istaago. gabdhaha waa idinla dhasheen, waa idin dhaleen, waa idin dhaxeen. channelkan haddaa ku cusub taas subscribe, like, share, comment-gana waa noo muhiim.